السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan mar kale channelka Teacher Awkash Online Academy oo ka baxa darsi ama duruus luqadda Ingiriiska ah. Waxaanu qaadan doonaa cashir ciwaankiisa uu yahay how to tell the time in English, sida luqadda Ingiriiska waqtiga loogu sheego ama saacada. qaybta koowaad waxaan ku qaadan doonaa past. marka waqtiga aad rabto ama saacada markaad rabto luqadda Ingiriiska inaad ku sheegto waxaad adeegsanaysaa past iyo to. past macnaheedu waxay tahay iyo to-na waynu soo socotaa. muuqaalka kale ayaan ku qaadan doonaa. waayahay leenka koowaad waxaa ku qoran saacadii kasoo horjeedkana ayadoo English ama qoraal ahaan. waayahay 12 saac oo buura ah. waxaad leedahay it is 6 o'clock and it is 5 past 6 waa 12 saac iyo 5. it is 10 past 6 waa 12 saac iyo 10. it is quarter past 6 waa 12 saac iyo rubi. it is 20 past 6 waa 12 saac iyo 20. it is 25 past 6 waa 12 saac iyo 25. it is half past 6 waa 12 saac iyo bar. hagaag daawadayaal waxaan filayaa inaad fahamteen sharaxaada cashirka. wayna ku muuqdaan saacadii iyo qoraalka oo kasoo horjeeda iyo sharaxaada codka oo saaran. waxaan filayaa marka inaad si fiican uga bogan doonto. haddii aad kadib lagu dhaho what time is it, meeqa saacad lagu dhaho, waxaan filayaa inaad ku sheegi karto English. mahadsanid daawada.